السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. noloshu aad bay u mugdiya walaac badan tahay marka aad wax yool ah ama higsi aadan ka lahayn. inaad nolol farxad leh aad ku noolaataa wax sahlan ma ahan, balse waxa ay u baahan tahay inaad u dhabar adeegto yoolka aad ka leedahay noloshaada, aadna marnaba ka gaabin dadaalkaaga, xoojisana xiriirka adiga iyo Allah subxaanahu wa tacaala idiin dhexeeya. mar walba oo xiriirka Alle aad la leedahay uu wanaagsanaado, noloshaaduna way wanaagsanaan. waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago 6 astaamood oo sabab u noqda inuusan qofku weligiis uunan gaarin guul. 1. calaacalka sidiisaba nolosha waxba kama bedelo. nolosha isbeddelkeedu waxa ay u baahan tahay kac oo gacantaada wax ku bedelo. inaad horumar nolosha ka gaadhaa waa inaadan calaacalin. 2. eedayn. cid walba way eedaysan tahay marka laga reebo naftaada. sababta ugu horraysa ee aad la hormari la'dahay waa naftaada oo aad ka fogaysaa eedda, oo mar walba kula quman kulana saxan. si kasta ay u qaldan tahay naftaadu, waxa aad u diiddaa inaad muujiso qaladkaaga halkii aad ka sixi lahayd si aad u gaadhid nolol horumar leh. 3. inaad si fudud u rajo go'did, iyadoo rabbigeen inuu ku dhiiragelinayo qur'aanka inaadan marnaba ka quusan naxariista Alle. ogow waxaad weyday kuuma qornayn, waxa kuu qoranna marnaba ma waayaysid. nolosha gabagabadeedii ma joogtid, horay u soco oo ha rajo dhigin, mar walba noolay rajadaada. 4. hurdada. mar walba oo ay badato caada dhaqameedka hurdada, waxa ay kuu horseedaysaa inaad rajo dhigtid himilooyinkaaga. dadka guulaystay waxaa caado u ah inaysan hurdadoodu badnayn. 5. dib u dhig waa caadada guuldarrada, waana fashilka nolosha. waan qabanayaa, waan samaynayaa. kelmadahaas inaad adeegsataa waxa ay noloshaada u sababayaan una horseedayaan fashil iyo guuldarro. 6. xusuuso nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uu ka yeelay dushaada. haddaba waa inaad lahaataa wakhti aad ku xustid nimcooyinka Alle uu ku siiyey.